doodhan madaxweynaha iyo gudoomiyuhuna waa ku mahadsan yihiin sida sharafta leh uga shaqeeyaan horumarka dalka iyo dowladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqayn koonfur galbeedna waxay weligeed ahayd buddhigaha wada shaqaynta dadka iyo dowladda Soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantiin halkan waxaa hortayda ka muuqda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan sheegay waa saamiga ugu badan ee dadka iskale dadka Soomaaliyeed maadaama ugu yaraan 75% shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro waa idin hambalyeynaya sida isugu duubantiin waa idin hambalyeynaya sida dowladdiina u garab taagantiin waa idin hambalyeynaya hamuunta idinka muuqata iyo dowlad jacaylka halkan waxaan nimid aniga waqtigaan hogaaminayo inaan la fariisano madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweynaheenu kala hadalno baahiyada ay qabtaan ku bilaawno sidii hay'adihiina amniga loo xoojin lahaa dib u habeyn loogu samayn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiina aan ka shaqayn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sida aan u fur lahayn jidka isku xira xamar iyo baydhabo haddii ilaahay yiraahdo sidaad la socotaan dowladda federaalku waxay waayahan ku mashquulsanayd in la xoreeyo deegaano ka mid ah koonfur galbeed oo ay ugu horeysa shabeellada hoose waxaan madaxweynaha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed uga mahad celinayaa doorka mugale oo ay ka qaateen inay dib u xoreeyaan deegaanadaas oo aan rajeynayna mar dhow madaxweyne cabdicasiis inuu u guuro magaalo madaxdiisii uuna halkaas ku shaqo gala haddii ilaa yidhaahdo halkan waxaa ka muuqda dad Soomaaliyeed oo isku tashaday ka shaqeeyay amnigooda dhisanaya magaaladooda jecel dowladnimo dowladda waxaa laga rabaa inay garab istaagto sidaas daraaddeed ayaan waxaan soo kaxeeyey hay'adaha federaalka oo aan rabo inay idinkala shaqeeyaan caafimaadka waxbarashada dib u dhiska dalka amniga iyo sidii dhalinyaradan faraha badan halkan joogta shaqo loogu abuuri lahaa haddii ilaahay yidhaahdo meel walba waan ku soo wareegay dalka Soomaaliyeed mar walba oo dhib dhaco waxaa taagan oo isu soo baxa dhalinyaro Soomaaliyeed mar walba oo dadka Soomaaliyeed ay culays dareemaan waxaa soo istaaga haween iyo culummo Soomaaliyeed mar walba oo dhib dhaco waxaa soo baxa Soomaali tiraahda waxaan rabnaa Soomaalinimadii waxaan meel iska dhignay oo aasnay qabyaaladii iyo qabiilkii qofka jooga koonfur galbeed iyo qofka xamar jooga iyo qofka dhuusamareeb jooga iyo qofka beledweyne jooga iyo qofka boosaaso jooga kulligood waa dad Soomaaliyeed Soomaalinimada ka dhaxaysa qabyaaladna ma ogolin mana ku shaqayn doona qabyaalad reer Baydhabana waxaan rabnaa inay hormuud ku noqdaan Soomaalinimada waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii koobneed oo dowladdeenu jirtay waxaan la kulannay caqabado badan laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dowladeed iftiin dowladeed oo ay tusaale ka tahay si soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka Baydhabo iyo isbartiimada Baydhabo haddii qof Soomaaliya uu shaki uga jiro dadka Soomaaliyeed dowlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada Baydhabo aan hortaaganaha maanta haddii qof Soomaaliyeed uu shaki uga jiro Soomaaliya hore uma socotay kaana soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof Soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonay dalkii loo yaqaanay ma noqonaynaa sharafteena ma soo celinaynaa kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray Baydhabona waa ku mahadsan tahay maanta waxaa muuqata dowlad Soomaaliyeed oo go'aanka loo gaarin oo iyadu gaarta oo aan iyadu kala tashan cid idin matala lahayd laakiin iyadu idin matasha oo aan xoolihiina idinka xadin ama idinka musuqmaasuq laakiin idin dhaqaalayso oo la xisaabtanta cid walba oo dowladda u shaqaysa iyo dunida inteeda kale
ودقالي إني دمهابين إذن كوسا ميسي أو أدو إن دينتا ليدن كعفيو وعيدن كيني دمهابين إذن كوسا ميسي أو أدو إن دمان ديغانا دا عدو ويستلقى حريو وإذن دجيسي سياسة مديسان أو مستقبلك لجارسين دون تويلاشي يقبناها هالكن جوغا إياغو إناي نقضان كوك دالكا صوماليات قوان كقاري لهاي مصير كو ياران آيو إياغو عدك بيبان جورو جدا البان صومرني قدود يبورا لك مبدعاها يقدعو قيب تفتين كانوا صوبحنا لكن السياد كيستال الربان وقول عليس والباء ودولة لماذا الأمر معناه إنه واحد تعاين أن قعدت يدين قلنا دولة كتب يرمد عنك وحتى ينجب عليس والباء والله مرة واحد تعاين أن قعدت عليس والباء مرة معناه إنه واحد تعاين أن قعدت Somalia رمان تنجب عليس والباء مرة واحد تعاين أن رادي لأنه إذن كيرا غشان مستقبل كتحديث يعني يجوني وان هلا بالتوازن لكن تاسيسية ودعوا لكن تاسيسية ودعوا دولة لماذا الصوماليات يهرمركي هذا دحدحات كما نقول كرتان ما دعوان كرتان إذن كل جيدة قرد يصح ما دعوان كرتان هذه دولة لمدينة اللي ذيك قلعي ما إلاشان إنسان دولة لمدينة ما كش غير إنسان إذنكم ما كش غير إنسان سيدي هذا إذنكم أود المستقبل كله وريق الهيدان أنا لقلي جوانا ولا هذا الفلارة مدريش عالمك أوطن ومانتا هالك بسوي مالك بينما يسوي يقولي يعني يسوي مدعيني مركز عندي جوانا وحيابا حتى بلاد الدولة الفدرال كوعوسو أنا من سنة هاي نشقوين بدل هالك كخوان إنه وحنكو بالله إنه مركز هوري بلقات كوغوري إن دليرة بيدابو هالك نجوتي كفرحان laga bilaabo maalinta bariyaha dawladda federaalka ay ka shaqeyn doonto in la idin dhiso garoonkan waa maalintii